السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan idin wadaa sheeko aan ugu magac daray ama la magaca khaatimada wanaagsan Ilaahu nagu toosi. Sheekadan waxay dhex martay wiil iyo nin wadaada. Maalmaha kamid ah waxa dhacday nin wadaada oo meel iska maraya gaari iska wata ayaa wuxuu arkay wiil yar oo dhalinyaro oo gabadh in badan daba ordaya. Kadibna wuxuu la yaabay موضوع عنق غير استعماله دقن حمده iyo akhlaaq xumada iyo sida mataqaana uu ninkaas uu daboorday gabadha yar dhalinyarada kadibna intuu adkaysan waayay gaari ka soo dagay kadibna wuxuu ku yiri ma kula hadli karaa kadibna uu la hadlay mowduucii marka uu deesi nasteexaysan ugu warramay dadna Ilaahay xasuusiyay salaada xasuusiyay in cibaadada Ilaahay jirto dadna wiilkii yar marka uu yaabay dadna wuxuu yiri waxa mucjisada maanta lagu soo diray haguu sheekana kala qaad aduu ugu dambeyntii wiilkii yar wuxuu ku qaatay inuu mataqaana mowduucan uu sheekhan sheegayo ay tahay wax runtii muhiim ah oo aad iyo aad u tusaale qaadan karo oo tusaale u noqon karto kadibna sheekhu wuxuu wiilkii yar ku yiri waxaan u baahanahay sheekhow sida aad ii sheegtay inaan taladaada qaato kadibna sidii buu talad ku qaatay sheekhi marka uu ku farxay gaariga iska raacay iska tagay 2 isbuuc markii ka soo wareegtay waxaan idin sheeka dhaafay sheekhu telefoonku cunuga yar ka qaatay wiilka ka qortay 2 isbuuc kadib marka la soo hadlay deetna isagoo kule waxa way xaaladaada ka waran sideetay deetna xaaladii ugu warramay deetna wuxuu ku yiri hadda muddo sheekhow nin fiican baan ahay oo Ilaahay ku xiran salaadiisa ilaaliya runtii cibaado intii ugu filan waa sameeyay deyntii Ilaahay waajibkiga dhigay waan sameeyay waanad ku mahadsantahay isagoo mahadnaqay sheekhu waxaan doonayay inaan ku casuumo oo maalmaha kamid ah diinta sheekh marka wuxuu ku yiri hadaan baris ku nimaana ka war deetna wuxuu ku yiri okay bari baan isku imaananaaba barigelinka dambe oo kale meelaha kadibna sidii marka sheekh marka maalintii dambe uu shiri guriga u kaalay guriga markuu soo garaacay oday baa marka ka furay murugaysan jirkiisana deeqa iyo siiga iyo waxyaalo noocaas oo ka buuxaan deetna wuxuu ku yiri soo dhow sheekh waxaan ku qabtaa deetna wuxuu ku yiri waxaan u baahnay hebel wuxuu ku yiri soo fadhiiso markii saabu ku yiri deetna deeqada iyo siigada iyo maaragtay anuun wali meedan baad iigu timid wiilkayga waan soo aasay deetna sheekh intuu yaabay istaago wuxuu ku yiri maxaa si wax dhacay deetna wuxuu ku yiri maanta salaadii duhur markuu tagay salaadii ka soo noqday isagoo iska cibaadaysan iska faraxsan buu guriga yimid deetna wuxuu yiri qadeyn maayo yara seexanaya waxa weeyaan hadhow kici markii aan siri kicina daaduu tiisi baa gashay waanu soo kici kar waayay kadibna sheekhi marka wuxuu yiri يعني sheekada uu la yaabay uu la qoshoocay dadna fajac bay ku noqotay meel taqaflaha wiilkii yar ku soo booday kadib sheekhi marka odaygii baa marka wuxuu u raaciyay wuxuu ku muddo 2 bilood 2 isbuuc wiilkaygu iska fiicnaa in akhlaaq la buuha masaajidkiisa ku xiran hatta salaatu leelka tukada oo runtii salaadaha iyo mataqaana ay wixii waajib Ilaahay uga dhigay oo dhan fuliyay intaas kadib sheekhi marka wuxuu dhaanu duceyno odaygii baa marka intuu ku soo jeestay buu ku ma waxa tahay sheekhi wiilkayga mataqaana Ilaahay uga soo dhigay nasteexada sheekh deedna wuxuu ku yiri ha waxana wiilkii sheekhi Ilaahay wiilkaaga nasteexada uga soo dhigay odaygii intuu soo istaago madaxa ka dhukaday deedna wuxuu yiri yani aad baad mahadsan tahay horta qof kasta Ilaahay baa og meesha nasteexadiisa ku jirto laakiin waxaad u noqotay wiilkayga nasteexo sababtoo ah waxa weeyaan waxaad ahayd qofka kaliya runtii maanta cadaabta u gali lahaa ka badbaadi Ilaahay baa og meesha ku sugayay laakiin barta cadaabta ka badbaadiya Ilaahay waxaan ka baryaynaa marka in Ilaahay nasteexada saxda ama wadada toosan ugu dilo Ilaahay waxaan ka baryaynaa runtii inuu Ilaahay wadada saxda ugu dilo insha Allah dhamaantii waxaan ka codsanayaa YouTube-keena subscribe saartaan sheekooyin badan oo noocaas oo idinka sheekayn doona oo hadii laakiin aad ugu xidhnaataan waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh